maalmahan baarlamaanka waxay ku daran noqdeen bulshada oo bulshada waxay ka cawdaan ay baarlamaanka ka hadlaan. magaalada Muqdisho la soo dejiyaa maalin walba 5,800 oo marduuf oo jaad hal soo geliya ala marduuf waxa laga qaadaa $4 baa laga qaadaa. maanta jaadkii ayay ka hadlaan canshuurta laga qaaday inta aado iyo dadka qaata iyo maanta muushin ay ka galaan jaadka ayadoo in mootooyadii cabanaysay ayayna u hadleen ganacsatadii sidoo kale maalmahan waxaad leedahay baarlamaanka waxay ku daran noqdeen bulshada oo bulshadoodii inay halkan u fadhiyaan ayay caddeeyeen ay bulshada Soomaaliyeed halkan u fadhiyaan ay u doodi karaan oo wixii xaq iyo xaq daraba ay ku hadli karaan. baarlamaanka maalmahan ma aragtay in maalmahan baarlamaanka la amaano ma aragtay baarlamaanka ay noqdeen dad wanaagsan oo sida saxda ku daran ah bulshada masaakiinta. waxaa lagu qaadaa Nairobi lagu qaadaa waxaana qaada shakhsiyaad baa qaada la og yahay qaarkood golaha wax ka fadhiyaan yaa qaada oo Muqdisho degan kaliya canshuurtii jaadka waa la isku haysaa oo markaana filim weyn ayaa qarxi doona dad badan oo jeebayaal ah oo lacagta canshuurta dawladda ku inta badan laakiin jeeb ku shubta ayaa la soo fashili doonaa. baarlamaanka maanta waa laga hadlay dad badan ayaa ka hadleen oo dood badan ayaa ka dhacday kiiladii waxa la $4 ayaa lagu canshuuraa in ka badanba maalintii waxaa la keenaa intaas tan oo kun ayaa la keenaa Muqdisho lacag dawladda intee aadaa oo canshuurta yaa qaata ay kulay ku dareen ayay noqdeen baarlamaanka. maalmahan baarlamaanka aad baa loo amaanay mootooyadii si fiican ay ugu doodeen oo lacagta tiro badan waa laga dhimay ganacsatadii sidoo kale maantana jaadki waa ogtahay jaadka in dalkeeni aad loo keeno oo ku nool yihiin ilmo badan lagu koriyo hooyooyin masaakiin ilmo agoon koraya caana ugu raadsadaan oo kira iyo biyo ugu bixiyaan sidaa darteed manaxyaal aan xin oo dadka dhiigooda kaliya ma aragtay dabaqay ku dhista ayaa maanta la fashiliyay oo baarlamaanka codka u badnaa ayaa la qaaday in jaadka lacagaha lagu canshuuro iyo waxa lacag ee baxda dadka qaata in la soo bandhigo wasiirka maaliyadda ayaa loogu yeeray golaha shacabka inuu imaado halkaas su'aal lagu weydiiyo baarlamaanka maalmahan waxay ku daran yihiin bulshada waa baarlamaan sax markaana baarlamaankii waxay aad iyo aad bulshada ugu dhibanayaan xilkii ahaa in bulshada u hayaan bal fiiri jaadka dakhliga ugu badan Muqdisho ayaa ka soo xaraa dakhli badan ayaa laga oo xisaab aan lahayn xisaabtaasi beesha marto iyo wax walba baarlamaanka inay ogaadaan oo wasiirka maaliyadda la xisaabtamo dad badan ayaa soo bixi doona oo fashilin ku dhici doona oo jeebanayaal ah oo leenkan loo xiray jaadka oo dadka dhiigooda cuna oo ay masaakiin maanta waxay soo qaatay rabtay in ilmaheeda kiilkiila uga doo ilmahaas maanta raashin ugu karisa ama iskuul ama waxbarasho ugu bixisa jaadka dumarku badan ayaa ka ganacsada hooyooyinku badan ayaa ka ganacsada oo maaragtay halkaasi ilmihii lagu furay qaarkood ilmo agoon haaya ilmahooda mar hore la dilay aabiyaashood la baabi'iyey ayay mar walba ilmahaas ka koriyaan wixii ka soo hara bal fiiri baarlamaanka ammaan ayay leeyihiin oo bulshada ayay ku dareen noqdeen halkaan maanta looma kala harin qaadka ayaa filinkiisa ayaa la soo galo dad badan ayay markaa way goosan rabtaa oo xaalkoodii meel xun ayay joogaa dad badan oo jimriyaala oo jeebka weyn oo ilaahay ka cabsanay oo dhiigga ummadda shacabka kaliya 24 saac u taagan inay cunaan aan shaqo kala qaban ayaa markaana cagta loo saaray waxaa la leeyahay baarlamaanka waxay dhaheen lacagtaas intee martaa oo lacagta dawladda halkay ku dhacda oo bangiga intee martaa lacagtaas jaadka intaasoo kiilo ayaa lagu canshuuraa Kenya iyo waxa lagu soo canshuuraa iyo Muqdisho Soomaaliya ayaa lacag ka qaada aawa lacagtaasi dawladda maxay ku qabataa wasiirka maaliyadda intuu mariyaa maxay tahay hooyooyinka loo naxariisteen markaana godkooda ayaa biyo ugu soo galo oo markaana waxa leeyahay sida ay mootooladii ugu kaceen baarlamaanka oo baarlamaankii mootooladii u doodeen xaqooda u socdeen mootooladii ayadoo mootooladii waa ogaadeen 300 oo leesin laga rabo in laga qaado 100 iyo wiliba laga dhigay halka canshuurtii tirada badan laga aruurinayay degada Soomaaliya oo dhowr nooc loo qaaday ganacsatadana la qaaday oo ganacsatada maga way neefsaday mootooladii markaana waxa dhiman ururka jaaliyada oo wili ka ganacsata in ayna xuquuq loo raadiyo oo masaakiinta kiiladii $4 lagu canshuur bal fiiri intaas bilyan ayaa Muqdisho canshuur ahaan looga aruuriyaa mana ka muuqdo dawladda mana arka jid dhisan mana arka wax ay ku qabtaan mana arka ay agoon lacag siinaya lacagtaas waa la sii weydiiyey oo baarlamaanka markaana gasha ay kala baxeen fooda oo xaalka wuxuu yahay dad badan ayaa fashilmi doona markaana baarlamaanka waxay ku daran noqdeen bulshada ee ay xilka waxay oo shacabka masaakiinta oo Muqdisho ku nool Muqdisho looga inay shaqaalaha badan jirto shidka aad u tira batay hooyo masaakiin ee joogaan ilmo agoon ay korinayaan
war muuqaalka qad meel gaarsiiyey adii ma kula tahay in baarlamaanka maalmahaani ay bulshada ku daran yihiin ee bulshada markaani aad iyo aad u kasbanayaan oo xaqa bulshada ay leeyihiin usoo dhicinayaan maadaama muddo sanadaha lagu qaqaadanaya masaakiinta ilaahay oo la dhacayo dad jembooniyaal oo ilaahay ka cabsanayn dhiigga dadka masaakiinta keliya cunaya muuqaalka sheegaree fikirka kasoo dhiiba waxay kula tahay maanta baarlamaanka si sax ayay u hadleen oo baarlamaanka maalmahan ammaan ayay leeyihiin dusha in looga tuuro oo weli loo duceeyo sida maalmahana shacabkooda ugu doodayaan baarlamaan lamida weligii hore ma arka baarlamaanka waa baarlamaan aad iyo aad u cajiiba kuwa hore way iska aamusanaayeen haddii ummadda la dhuuqaayo iyo haddii ummadda la leenaayaba kuwa laakiin bulshada ayay ku daran yihiin muuqaalka melergaasi adigoo aad u mahadsan